حسن. بلد وين ولا ولا يقانا مقالبات سنة دورية طبعا إلى 6 سنة بيسوق كجرتي ملا شيء كذا يدوم بالغ يا باين حلقة صوير هذا القاضي قفكي عم استقالة ذو هيستا معن مقنين وقت جالس بتكون استقال بقوليه تطبعات كيو مقالة اللي هذا بلد وين باروني هذا سويتشر معلمين يا عرضي وكوح من التريا برنامج حنونينا رواية حنونينا وقتي وذات كيتك تلك قبصدايو marka waxa ay gobolada oo dhan hal loo baxo la soo hanuuniyo marka anaguna iskuul oran jiray dhagax tuur oo secondary ku yaala xamar ardadiisii baan wadnay aniga ku jiray ragga meesha Maria Xasan Sheekh Muumin baa ku jiray salaad maxamed kale salaad darbi heesaaga baa ku jiray maxamed warsaman la yiraahdo isna heesa abdi karim jiir adu rag waaweyn oo caynkaas oo suugaanta ku caanaano ahayn iyo arday iyo kooxdan music tumaysay riwaayada ka tumaysay militariga marka anagu markii hore baydhabo tagnay baydhabo loo diray iskuul walba gobol baa loo diray anaga gobolkiina loo diray baydhabo markaan baydhabo soo dhameynay yaa leeyahay beled weyne iskuulkii loo diray muu tagay idinku xagaa ka soo wareego beled weyne taga marka beled weyne aan habeenimo soo galnay habeenkii marka waxaan loo nalasiiyay meel hanuunina halkii baan iska seexanay aroortii way tooseen dadkii anigoo keligay hurda ayaa laba macallin oo markaa beled weyne wax ka dhigi jiray waanu isniqinay igu yimaadeen meeshaan anigoo hurda way toosiyeen marka maqaayad webiga Shabeelle magaalada ku taalo maqaayad ku taalo webiga qarkiisa ayay geeyeen halkii baan ka quraacnay dibadna waxay waxaan soo tusnaa buundada la yiraahdo liqliqato webiga magaalada ku dhex yaala waa bridge ama buundad maxaa laga yiraahdaa boonkaas oo aan baabuurtu ma martay dadku baa maro waa mid qoriyo waxa doonaysa handuluk bahalka yar carruurta loo xidho maradan loo xidho maaragtay marka la seexinayo exactly waa sidaas oo marka aad bay u kooban tahay oo qabeetana marka lagu dul socdo laftiga labada gaftiin bay ka xidhan tahay oo maaragtay inteeda kale saas ay isaga lulataa moogti biyuhuna wabiguna wuu hoos maraya liqliqata leeyahay waacaan waxaan soo tusaynaa bundadu ima cusbo maanta beled weyne iguma horeyso dhowr goor oo hore ayaan idin waxaa la ogyahay hadaba iskuulka secondary cusub ee laga dhisay webiga dhinaciisa kale ina keenan oo halkaas iyaguna macallimiin ka yihiin laakiin waan iska soo raacay markaan bundadii sidaa u soo koray ayaa inkastoo aan bundada hore u arkay haddana dee qof magaalada degan iyo qof kulleyba markaa yimi isku xiisa maaha waa yar hakadayoo xagga hoose xoolaha ka cabaya dad baa ka dhaansanayo marka iyagina way gudbeen oo dhinaca kale ku taalla ay soo istaageen anna cabaar baan markaanu dhinaca ka soo koray cabaar baan iska yar daawaday xoolihii iyo dadkii iyo kuya maaragtay xaggii hoose weygii ka hoosay cabaar markaa saa u daawaday waan sidaa u ahaa baan dabatay istadbay waxaan iska dhaqaaq oo inamadii ka dabatay gaftinkii aan buundada ka joogay mooyaane dhinacii kale ayay gabadhi ka soo kortay boonkaas bridge-ka goor subaxa 9:10 gabadha timo dheer bay leedahay timuhu waa u furfuran yihiin xagga dambana cadceedii baa timaha ka haysa dabeedna istadabkii aan istadbaysay dhaqaaq waan dhaqaaqi kari waayay malaabu halkay gabadhu ka soo wartay ilaa albaabkaasi ii jirtay qiyaastii dabeedna waxaan sidii falow hal ama laba ma ku tiraahdaa gabadha iyo war gabadha Soomaaliyeed waa la iska yaqaan haday doonto markay ku caayaysaa aniga inta naftaydii baa murmaysa waxba ha ku oran intii aan murankii intaan ishayeey gabadhii soo dhawaatay oo dabeedna inaan faduul meesha u taaganahay bay aragtay oo dabeedna waan eegado waan baqayaa anigu ma ogtahay dabeedna markaas arkay gabadhii oo yar muusoonaysa yar qoslaysa dabeedna waxaan war gabadhii mala waa mikir magaalo ku caay mayse iska yara faduuli ani faduusha keentay heesta uun baan doonayay inaan dabeedna hadaba afay garanaysa baa ku faduulin laba eray oo carabiya ayaan maaragtay markaa ku yidhi waxaa subxaana man khalaqaki yani waxaa nasahan ilaahay ku abuuray mogta ama kii ku abuuray ayaa nasahan yani waa eray ama carabtu eray carabiya wala subxaana marka wax lala yaabo waxaase markaa hadda kolley intaas garan mayse intaas gabadha kale subxaana man khalaqaki ayaa shayga cajiibka waxa uu ahaa inay gabadhii maaragtay ay jawaabta celisay carabiga ku celisay waxay tiri shukran bay tiri shukran marka taasay noqotay ta horta maaragtay ila sii daadigtay dabeedna
ilaa bundadiiba dhex taagnahay gabadhii markay soo socotay meel iga dhaaftay jirtay iyana way istaagtay waxaan sidii gabadha adaa meesha taagay oo ilaa fadliyo afka la galay bal haddaba wuxuun ku dheh lawaa nacasinime marka wuxuu kale waan arkaayo xaggan aad ka timi ma dhinaca aad ka timi baad degan tihiin mise dhinacaan aad u socoto si isku kalsooni leh raganimo leh aftahamo leh ayay gabadhii waxay tidhi maya xagganaan ka imi baa la degannahay qofufka tale dadkuu kala buruud sarreeya xaqiiqa waxa weeye marka intaas markay dhacday aniga biyo qabow baa laygu shubay gabadhii iska daa hadaan ku leedo waan eegi kari waayey dabeedna mar dambaan iscanaataan idhi war heedhe sida waa nacasnime markii aan hadda laga soo bixi waabay tidhi miyaad jeceshahay meesha aanu deganay inaan ku soo tuso waaba caynka cajiib si iska nacasnimo baan waxaan ku idhi haa oo runtii aan markaa waxba ku fadhiyin ujeeddo lahaynoo iska dheh way istadabtay waxay tidhi nakeen mar baa dee had iyo goor wax aanad ku talagelin markaad la kulanto wash bay kaa tidhaahdaa moogti inantii baan sidii neef xoolahay wadato iska dabagalay buundadii baanu ka dhammaanay inamadii baanu sii dhaafnay geedkii bay hoos joogaan waxay u qaateen gabadha inaanu isgarannay maan odhan isuga iyo iska taga midoo dee waanigan ma joogo intaanu jidka sii soconay gabadhi saal bay weydiisay waxaad kolley magaalada ma tihidee xaggee baad ka timi waan u sheegay maya waa runtaa magaalada anigu maahiid xalaytaanu soo galnay moqoladii caynkaasa ahaydin haa oo adigu kumaa tahay bay igu tidhi magacayga wanaagsan baan u sheegay waxay igu tidhi garan maayo laakiin xasan sheekh muumin iyo haddii ilaahay ka dhigo salaad derbi iyo qolyaha waan maqlay waan aqaan bay igu tidhi waxaan aniguna naanaystaas baan leeyahay waqtigaas waxaa 1970 anigu markaa caanba maan ahayn markii dambe naanays u sheegay naanaystii bay garatay guri dayr weyn leh ayay hor keentay oo albaabka weyn marna la furay baabuurta ka gasha leh meel bay gacanta ka gelisay gudahay ka furtay soo galbay igu tiri geed ku hor yaalla gurigay tiri halkan igu sug gurigii bay gashay kursi bay ii keentay ayay tiri kulley waxaa jira wax cajiib ah oo harkii galay buuntadii dadkoo dhammi marayay kugu kallifay inaad iskay hor taagtide ma ii sheegi karaysaa waxaa kuu qasbay inaad halkii maaragtay iskay hor taagto waxaan ku idhi way jirtaa bal qabsoo baan idhi taariikhdayda iyo noloshayda waa markii ugu horraysay meel bannaan aan gabadh is hortaaga baan ku idhi run baanay ahay ayaa jirta baan ku idhi laakiin imika kuu sheegi maaye markaan tago raadiyo muqdisho waxaan idhaahdo raadiyo muqdisho ka dhegaysa waa yahay bay tiri imisaad joogaysaan bay tiri waxaan idhi barnaamijkaasaanu sidnaayo 2 habeen ayaanu joogaynaa dabeedna waan noqonaynaa waxay tiri malaa waqtigii qadadii markay aragtay inaanay raganimo igu jirin malaa waqtigii qadadii iska tago bal 2 habeen markaa barnaamijka dhigtaan haynoo ahaato waa cajiib talo maxay damacday waa yahay baan ku idhi waa iska dhaqaaqay anigu markan talada ma lihi go'aanna ma gaari karo wixii ay tidhaahduun baa jira moogti socodku wayga xun yahay haddii ilaahay ka dhigo aad baan u kala daadsanahay mar uu iyaa ka hor kacana intaa hoos baan maaragtay waan tigu malaaqoladiiyo qada doonatay meeshii aan ku soo degno maba qada doonay madaxiyo manjaha dubo dhag baaban iska idho 5 iyo barkii baa laytoosoo leeyahay caawa barnaamijkii baa jira dee toosoo haddii ilaahay u diyaar garow marka waxay riwaayad ku saabsan in Cabdillah Xasan iyo daraawiishta iyo dagaalkaas anigu in Cabdillah Xasan baan matilayay oo baashii madaxa go'ay cadaay madaxa lagu duubanayay iyo kii jeeri qaarkii iyo seefo iyo daraawiishii la socotay iyo wax riwaayadan aniga Xasan Shamuumi baa wada sameynay geeraaradan aan akhriyayo anigu anaa sameeyay intaasoo habeen baanu baydhaba ka dhigayno habeen walba matilayay meeshii baan imi laga dhigayay riwaayadda waxay silimo weyn oo ku yaalla xamar waxa la beled weyn oo leeyahay Sheekh Ali Jimcaale silima Sheekh Ali Jimcaale dadkii baa soo buuxay dabad waxa yiri nin baa wata leeyahay Cali Dheere ninka la baxay taliya baas wuxuu koray meeshii buu korayo wuxuu yiri riwaayadaas bidisna magaceedu waa ka jidadaas ka hadlaysa ragaas baa alifay ragaas dadkaas jilaya ku soo dhawaada marka markuu inta dhameeyo uu soo daadegay cidda bedelaysa koraysa meesha bilaabaysa riwaayada aniga ay ahayd
anigoo xertaydii wata ayaan markaa koray masraxii in cabdilla xasan baan bedelaya mikrofoonka baan saa isoo taagay markaasaa isoo taagay baan dee koleyba dadkan bahalaha riwaayadaha dhiga waa iska caadi markay meesha soo koraan indhaha waxay siiyaan dadka saasuun baan isha u mariya dadkiioo inantiioo kursiga ugu horeeya soo fadhidaan marka baladba geeraarkii aad 10 habeen akhriyaysa aad adigu aliftay baladba hel hirig qoladii daraawiishtaydii la socotay hoostayga bujinaysa intaa dahay hadal halkaa kii cali dheere iyo kooxda inteedii kale oo xaggii jooga baqsinka yaraada halkaa igala hadlayo maxaa kugu dhacay wad wallahi bay ka tahay waan soo qaban waayey markii dambe aan arkay inaanu baadhii baxay hadal iyo waxbaan isku jacburiyaan ka warhayno dabadeetana si degdeg ah meeshii uga soo daadego waa leeyahay maxaa kugu dhacay waan xanuunsanaya halkaasaan kursi ula baxo aan isweydiinayo waxa igu dhacay baan ilaa hadda aanan garanayn waxa jira markii baashi dhaweyd baa sidaan isaga fadhiyay ay gabadhii ka soo kacday meeshii aan fadhiyay noogu soo gashay oo gabdhaha nala socda ee iskuulka ka socda ayaa qaar reer beledweyne yihiin oo ay markay soo koreen masaxa karatay abar bay sheekaystay markii dambe ay tiwaxtay hay sayid maxamed cabdilla xasan iska war sayidku markii bislaas uu ka qaadan jiray macaynkaas aad ugu saaraankaas oo mooyee way habeenkii hore saasi ku dhamaatay waa tii bal marka labada habeen ay baashoodii dhamaato hayno ahaato waxay dhamaasantahay warka ma hayo marka anigu labada habeen baan ogahay habeenkii hore saasi ku dhamaatay habeenkii labaad showninkii meesha ka ahaa governorka bara saabka ka ahaa ayaa ninkii annaga madaxda noo ahaa u yimi oo wuxuu markaa labada habeen dhigtaan habeen saddexaad annaga noogu tabaruca oo waxa ka soo baxa aanu sportska gobolka aan hore ugu marino ku dhisno intaan noogu samafal noogu sameeyo shaway uu ka aqbalay habeenkii labaad baa la soo noqday halkeedii bay ka bilaabatay masraxda soo koray mooyi mana daayo waa iska balwade sidoo ma dadku eegay laakiin marka habeenka gabadhu may fadhiyin si wanaagsan oo caqiibo loo raganimo leh ayaan qaybteedii u matilay dabadeedna baashii way dhamaatay markii intii ugu dambeysay lagu jiray baan anigu alaabteedii qaato dibadaan u baxayo silimaha hortiisa ayaa kooxda inteedii kale isri ku sug ulba koorada oo aasitay baa sidaa ugu tiirsanahay dadkii albaabka weyn buu ka soo baxay saas uu hormaraya anigu waan baraad la ahay dabadeedna waxaan arkay dadkii soconayay 3 qof oo ka soo baydhay waxay yar markay soo jireen bay laba istaagtay qofna hore u soo maray kaanimi waa gabadhii iska waran bay tiri waa nabad soo caawa hawsha idinkagama ekayn bay tiri may waxaan idhi gobolka naga codsaday inaanu habeen dambena dhigno oo wixii ka soo baxaan iyaga ugu deeqno waxaan idhi beledweyne leylkiisa waxaa la baqtin jiray 12 habeenimo markaa ruuc bay laadahay waxaan idhi dee bal kule waqti dambe aan ilaa ku sii dhaweeyo gabadhii baan israacnay inta ilaa hadlays baa gabadhii kale yiraahday heblaayo jaawo iyagii way iska tageen aniga gabadhii bay isku soo hadhnay waxaan ku sii dhaweeyeen wadi waan ka markaan buundada markaan webiga qarkiisii tagnay halkii buundada laga korayay ayaa leerkii la baqtiyay waxay tiri magaalada ka aqaano buundada ka gudbayay adigu hadhow ma soo gudbi kartid iska noqo diman hada habeen dambe aan maaragtay barnaamijkaasi jiro habeen dambe horta ku darsada showintii aan gabadha sii kaxeeyay baa ninkii barasaabka ku soo noqday ninkii madaxda ahaa wuxuu ku yiri waayo waxa yar cabanayay qolada music tumaysay militariga marka uu ku soo noqday wuxuu yiri habeenkii aan idin weydiisanay waanu ka noqonay fasax baad yihiin iska taga anna gabadhii waxaan kaga yimi habeen dambe ayaa barnaamijka dabeetana waxaan meeshii oo la iska seexday ana waan iska seexdo shantii barkiin baan qaylo iyo buuq maqlaya waan hurdaa waxaan si watriyoonaysaa haddana waqti mala nus saac ka bacdi baan indhaha kala qaaday mise baabuurka weynaa aanu wadanayba waxa la soo geliyay gudaha oo waa la raraya saasaan u soo toosay cidna lama hadlinay waan iska sii jiibsaday dabeedna waa la kiciyay waa la tagayaa toos baa la igu yiri xagee la tagayaa waa la baxaya meel caawa baashi meel jir waati la fasaxay waxa kale ma sameeyay marka alaabta sitay iyo hawl kale ma galin qasabad halkan ayaan intaan wajiga mariyay biyo ayaan ka baxay meeshii oo makhaayad ka soo horjeeday meesha kuraasi dibadda taalaan mid ku fadhiistayo shaaban isaga yeedhay idoo koobkii shaay hor yaalla baabuurkii oo la soo raray soo dhaqaaqayo makhaayadiiba hor yimo waa laga soo degayo dadkii quraac iyo shaah ay fadhiisteen kii madaxda ahaa bay soo fadhiistay cali dheera la yidhaahdaa waxaan idhi war waan xanuunsanayaa kulaba in badan baynu maxamed ka sokaynay haddaynu caawa iska joogno oo aynu berita tagno ka war waayo dee gabadhii
ayaan darada joogta waxa weeye gabadhii oo aanu ku kala nimi waanu joognaa caawa kow iyo iyadoo saacadani saacad la sii mari karo oo la odhan karo dee waanu tagnayee nabadgelyo aanay ahayn kiiba markaa idhi waan xanuunsanayaa ma socon kare aynu caawa iska joogno wuxuu nimankan militarigaaba ayaa dilay ka dhaw degdegsan oo diidano waan iska tegaynaa marka baabuurku sariir buu leeyahay shirka ah kaa iskaga jiifso waan iska tawakalaynaa waana keenay raja jirin lagu joogaa marka dadkii intay quraan anigu waan iska socday baabuurkii baan kurayo baabuurka dhexdiisa waxaad labadiisa dhinac kuraasi baa sidaa u safan dhexdana furshaan baa taalla oo maalintii ama habeenkii marka baabuurku nala socdo qofkii doonayaana furshaantaas ku seexanaya haddii aad doonaysaa kursigaas waxaad ka daawanaysaa dhulka markaan intaan baabuurkii koray baan furaash iskaga seexday saan u jiifay ayaan arkayaa niyadan ka daawanaya waa la soo korayaa waa la fadhiistay waa kaa buuqa khayr dabeedna baabuurka la istaaray markii lagu rogay ee uu guuxay baan furaashkii ka soo kacayoo kuraasidii baan mid ku soo fadhiistay dabeetana sidaan u arkayay buu dhaqaaqay wuu socday beledweyne nin qofkii arkay wuxuu socdaa markaa waddadii dheerayd ayuu ku dhacay kursigii baan ku fadhiya weli magaaladii baan sii eegayaa marba marka waa adiga arkay marba way sii durkaysaa way sii yaraanaysaa adigu markii ugu dambaysay maaragtay ayaa sawirkii lumay dabeetna furaashkii baan iskaga noqday halkii baan iska jiifsaday dabadeedna waxaa lay toosiyey buulo burte iyadoo baabuurkii taagan yahay mala qoladii buulo burtaa baabuurka is hortaagtay oo tii na dhaafi maysaana caawa noo dhiga may horta intaanaan buulo burte gaadhin tuulo layado koronto uunu ayaan hurdadii aan galay waxaan ku riyooday anigoo weli beledweyne jooga oo dee meel iska barwaaqa oo gabadhii haddii ilahay ka dhigo aan gabadhii la joogo de adigu sheeko caynkaasoo markaan toosay ayaa la kabisa koronto uunaanu maraynaa hurdadii baan ku noqday dabeedna waxaa ii xigtay buulo burti baabuurkii la hortaagay la leeyahay na dhaafi maysaan halkii baanu habeenkii joognay subaxdii baanu ka baxnay 12 maalinimaanu xamar gallay gurigii baan tago waan seexday 6 fiidkii baan toosay magaaladan jaad u doontay waxaan haddaba dee ilaa gabadhii sida ku kala timaadeen waad ogeydeen dee waad ogeyd sidaad ku kala timaadeen balaatan ballankii fuli dabeedna habeenkii baan u fadhiistay qalinkii waraqda waxaan kala qaaday iftiinadii iga soo galay daaqadda 6 subaxnimo dabeedna markaasaan ka kacay sidaan 7 qiyaastii meelaha u fadhiistay dabeedna sidaas bay haddii ilaahay ka dhigo maartay sheekada gabadha la yidhaahdo beerlula iyada sheekadeeduna sidaas bay